kulanti wacan saaxiibayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay waxaan eegi doonaa Luka Modric oo laga yaabo in isku koox noqdaan xidigii hore kooxda Barcelona kuliyada la Messi oo laga yaaban yahay korsooriyaashii farta ee kulankii Liverpool iyo Tottenham oo ciqaabta lagu badiyay dhulgari ka dhacay Napoli iyo waxaan eegi doonaa saameynta uu ku yeeshay kulanka caawa ay foodistari doonaa labada kooxood ee waaweyn ee Real Madrid iyo Napoli iyo waliba kulamada kale waaweyn ee caawa jira horyaalka Championka ay eegi doonaa haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqato fadlan rukumo kambalelkana furo saad u noqoto qofka ugu horeeya ee warbixinadii ay soo gaaraan mar labaad soo dhawaada saaxiibayaal haddii ku bilowno runtii kulankii dhawaa ee kooxda Liverpool iyo Tottenham ay foodistareen oo qaladaad fara badan halkaas ka dhaceen Liverpool gabi ahaanba way diiday raaligelinadii loo bixinay waa diiday Liverpool waxay leedahay qaladaadku waa ugu farabatay sanadii ugu dambeeyay qaladaad ay horyaalku uu ka galiya runtii inta badan waa dhacdaa qaladaad in garsooriyaasha qaldamaan horyaalka Premier League wuxuu ka andacoonaya in ay ragaas ku adkaysteen waxaa lagu soo waramayaa si laga soo xigtay Sky Sports garsooriyaasha farta ee ciyaartaasi Darren England iyo waliba Awiso Cook markii hore waxa labada nin la ganaaxay laba kulan inaan gabi ahaanba qaban hadda waxa lagu soo waramayaa in kulanka lagu daray ganaaxood oo 3 kulan horyaaladaasi laga ganaaxay garsooriyaashaasi runtii Liverpool waa diiday raaligelinadii loo bixinay waxay leedahay qaladaadku waa ugu farabatay wali alaan doodo ayaa socda dacwada ay furaysaa oo xiriirka garsooriyaasha ay ka dacweynayso mar labaadna wataasi ay qaabto waxa lagu sii badinayaa garsooriyaasha kulankaasi hay waxa kuna muran badan oo runtii uu hareeyay maalmihii ugu dambeeyay la hadal hayo walibana waxa aad u andacoonaysa oo keenay ganaaxan in labada nin lagu qabto waxa weeye goolkii daqiiqadii 3-aad laga diiday Luis Diaz goolkaasi oo lagu andacoonayo gabi ahaanba goolkaasi inuu saxa oo gool caadi ah oo labada nin ay diideen isagoo half side hayn oo runtii daafacidu ay ka horeeyeen ninkaasi ayaa goolkani diideen Liverpool waxay wali ka xariistay waxay leedahay iyadoo goolkaasi laga diiday daqiiqadii hore oo runtii laba nin casaan laga siiyay inkastoo casaanada aad ugu doodii leeyahay casaanadaasi waa daxbay hayn haddana waa taasi Liverpool wali waa andacoonaysayo baraha bulshadu waa haystaa waa kaasi garsooriyaasha mar kale haddana ganaaxa lagu sii badiyay sababtaasina waxa weeye in Liverpool lagu qanciyo qaladkaasi laga galay runtii waxa lagu soo waramayaa haddii aan eegno dhanka suuqa Luka Modric in aad ay looga xiiseeyo horyaalkaas MLS-ka oo kooxda Inter Miami halkaas laga doonayo halkaas ay ka doonayso Luka Modric sidoo kale waxa leeyahay xidiga hore kooxda Real Madrid David Beckham oo ninkan Luka Modric uu doonayo in kooxdiisa Inter Miami uu ku xoojiyo iyadoo waliba suuqan 3 ciyaartoy oo kooxda Barcelona hore ugu soo ciyaari jiray oo ninkan uu ka soo qaatay Lionel Messi Alba iyo waliba Sergio Busquets waxa leeyahay Luka Modric oo 3 nin ka mid yihiin 3 ciyaartoy ee ay ku soo dagaalameen horyaalka Liga iyo waliba kulanka El Clasico isu koox ma noqon karaan ninka Luka Modric waxa uu dareensan yahay runtii in sanadkan uu yahay sanadkiisii ugu dambeeyay kooxda Real Madrid ninkan waa daalay kooxda Real Madrid runtii bedelada labada nin ee hadeer ku haray inkastoo khadkii dhexe ee muddo dheer ay ku soo xukuntay hadda moodooyin si jabayo oo ku suuq ka baxay dhawaa in Casemiro imikan laba nin ay ugu hareen runtii bedelada kolba nin bedelkiisa ay keeneen waxa dareemaya Luka Modric inuu waayis Real Madrid ka dhamaaday waxa arkaysa Kroos iyo Luka Modric oo kooxda Real Madrid bedel ku baxaya runtii Real Madrid ma rabto hal mar inay ka wada baxaan kolba si nagu soo kabato runtii waxaad moodaa labada kooxood ee aad xifaaltan uga dhaxeeyo Real Madrid iyo Barcelona inay dhanka maamulka ay ku kala horeeyaan waxa dhacday sanadihii 16-15 in laba sano isku xigta labada ciyaartoy waaweyn qadka dhexe in badan ay ku soo timirisay kooxda Barcelona waa Xavi wanika hatan tobaraha kooxda Barca iyo waliba Iniesta laba sano isku xigta ay ka baxeen oo qadka dhexe kooxda Barca hal mar isbaneeyay waana sanadaha ay bilaabmeen fashilka Barca ee waliba in Championka kulamada dambe lagu sameeyo comeback waliya oo kooxoyin fara badan ay ku sameeyeen 2017 ay qaadayeen horyaalka ugu dambeeyay ee Champion ahaa oo waqtigaas Iniesta ninka hatan tobaraha Xavi oo markaas uu kabtanka ka ahaa oo koobkii ugu dambeeyay ee kooxda Barca ay luxdo sanadkii ku xigayna ee comeback lagu sameeyay ay ku sameysay Roma waa ka baxay Iniesta runtii wixii ka dambeeyna fashilada ay asaas soo bilaamay mar rabta hadaba kooxdan Real Madrid
inaydu fashilkaasi ku dhacay waxay doonaysaa kolba mid inay kasoo kabato weli waa taa iyadoo haatan ka maarantay Luka Modric iyo weliba Toni Kroos oo ka muuqda inay daaleen oo daadu kusoo baxayso haddana ay weli ugu dhagantahay doonaysa inay sii haysato si khibrad looga sii faa'iido hadda waa kaas Luka Modric waxa leeyahay sanadkii ugu dambeeyay waa kan waxa laga yaabaa inuu ka baxo suuqa soo socda oo halkaas Real Cameleska uu waayiso halkaas uu ka sii wato inkastoo way soo gabaabsi uu yahay oo ninka 27 jiranayo dhawaanna uu 38 oo galayo hadda waxa leeyahay digii hore soo xifaaltameen ay halkaas ku kulmi doonaan Luka Modric halkaas Real Cameleska ayaa laga xiiseynaya inkastoo aan shakaanu ku jirin in horyaalka Sacuudiga oo kula tartami doono oo kooxoyn far badan ay ka mid tahay Al Nassr iyo waliba Al Hilal ay ninkan laftigiisaba ay xiiseynayaan hadda waxa laga yaabay yahay oo kuliyada La Masia kooxda Barcelona akademiyada La Masia waxa leeyahay sanadii ugu dambeeyay waa akademiyada soo saaraysa xidigooyin fara badan hadda waxa leeyahay Barca xidigooyin fara badan ay soo saarto oo ugu dambeeyay sanadkan waxa ugu dambeeyay waa Lamine Yamal runtii xidigani aad ayaa looga yaabay waxaan leeyahay waa 16 jir laga yaabo sanadaha soo socda markuu daweysto imika wad moodaabay isagoo 16 jir in maskaxdiisa ay kala go'day goolalka runtii uu caawinayo sidoo kubadda uu soo jiidanayo aad moodaa hadeer u dhaqmay sideenin kubadda in badan ku soo jiray waxa la dareemayaa ninkan sanadaha soo socda in kubadda cagta uu qabsan doono Barkana waxay rajaynaysaa ninkani inuu miisiyoobi doono runtii waan lug bidix laga yaabo inuu sanadooyinka soo socdo ninkaasina waalo haddaba sanadii ugu dambeeyay laga soo bilaabo 2020 waxaad moodaa sanad walba Barcelona in xidigayna barayso xidigana ugu dambeeyayna 1 bilyan ay ku xidhay hore waxa uu jiray Aruqi ku xidhay Fati Badri Gavi Alex Baldi runtii waxaad moodaa Barca in xidigo fara badan ay noo soo saarayso Aruqo waa Fati waa Badri waa Gavi waa Alex Baldi waxa digeen fara badan oo kuliyadaas La Masia ka soo baxaya runtii oo mid walba ay 1 milyan ku xidhay waxa dareemaysaa xidigahan yar yar runtii si aan suuqa aanay waqtigooda aanay uga mashquulin ay lacagaha fara badan ay dul dhigtay waxaan dareemaysaa xidiga mustaqbaliyeen oo sanadooyin fara badan ay ku xamaalan doonaan sidoo kale waxa jira xidig kale oo ay qorsheynayso inay sidoo kale ka saxiixdo sidoo kale waxa la dareemayaa xidiga khadka dhexe ee kulankii saaxiibtinimada America ay ku ciyaarayeen Real Madrid Barcelona goolka dhalinay waa Fermin Lopez sidoo kale kulankii dhawaa goolkiisii ugu horeeyay dhaliyay isagoo laftigiisa badal lagu keenay kulankii Mallorca goolka dhalinay barbardhaca xidiga khadka dhexe Fermin Lopez laftigiisa waxa la dareemayaa isagana in heshiis 1 milyan ay ku xir doonto imika Lamine Yamal bay ka saxday 2026 lacagta lagu heli karaa waa 1 bilyan runtii hadii 1 bilyan aan haysan waxa weeye wadada ku qulqul lagama yaabo xidigaas inay hesho sidoo kale waxa kamid ah iyagana 1 bilyan lagu xiray waa Aruqo Fati Badri Gavi Alex Baldi Fermin Lopez waxay qorsheynaysaa laftigiisa inay ku xidho oo isaguna la dareemayo in yahay xidig weyn oo laga yaabo isaguna inuu ka mid noqdo xidiga weyn kooxda Barca inuu maamulayso waxaana xidigan soo saaray waa La Masia waa made in La Masia Lamine Yamal baan u dambeeyay waliba Fermin Lopez oo isaguba kamid ah inkastoo Fermin Lopez uu 20 jir yahay laakiin Yamal waxa looga sii yaaban yahay ay saxaafadu hadal hayaan waa 16 jir waxaan moodaa 30 jiro sidoo kubaddiisa uu maamulanayo hadii waxa jiray oo wararkii ugu dambeeyay wargeyshada ay ka waramayaan Bulgaria xalay ka dhacay Napoli iyadoo waliba halkaas ay ku sugan yihiin xidiga kooxdaasi Real Madrid oo ay caawa 10 habeenimo foodistay doona Napoli runtii waana kula adago waa Napoli oo soo raaxaysatay oo kulankaas soo badisay iyo Real Madrid laftigood soo badisay laakiin lagu soo dhibay oo xilli dambe Bellingham oo goolka guusha u dhaliyay ay halkaas iyaguna ku kulmi doonaan hadda wax markii hore lagu soo warramiyay in kulanka laga fiirsanayo in la baajiyo Bulgariakaasi runtii haddana waxa lagu soo warramiyay kulanka caawa ay foodistay doona Real Madrid iyo waliba Napoli sidoo kale kulamo kale oo waaweyn ayaa jira Arsenal ba ciyaari doonta iyo Lens Benfica iyo Inter United iyo waliba sidoo kale Galatasaray ayaa iyaguna foodistay doona kuwaas oo kulamada caawa la ciyaari doona ee waaweyn runtii horyaalkaasi championka foodistay doona sidoo kale Arsenal waxay doonaysaa in kulankeeda labaad oo xiriir laftigeedba ay badiso Manchester United oo iyadu laftigeeda soo dhibtootay oo kulankii hore la soo garaacay waxa caawa doonaysaa laftigeedba inay iska maydho oo kulankeedana caawa ay guuleysato oo ceebtii hore kulanka hore ka soo gaaray ay iska maydho halka Arsenal ay doonayso welina si raaxaysato Lens oo laftigeeda soo barbarayso Sevilla la soo barbaraysay inkastoo PSV ay soo tuntay ay doonaysaa inay arigaasi Faransiiska ay caawa kula ciyaarto
kooxdaasi Lens sidoo kale waxay iyaguna ciyaari doonaan Bayer oo iyaduna doonaysa kulankeeda labaad inay guuleysato kulanka hore kasta United ay kusoo tumatay. Kulamadaasi waaweyn ayaa jira oo horyaalada championka inta kulmi doona wararkeena kale. Wassalaamu calaykum.